السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وناكسون ومع صاحب يال ميل بجوكتن وسلامتين. ومركل يا برنامجنا دي رجلين تاها كسور دواد مقال كله وحين قال لنا مانتا شن عادو هو وناكسن وباسطيف كودي على نرشاب وشن شيء هذا سميسه بال أدنلول هير سرا هلسو وهاتي أب سيدا أي تاي وقصو بحضو oo noloshaada ku dabaqdo oo caado iyo habdhaqan ka dhigato ilaahay baa ku jeclaan thumma dadka ku jeclaan noloshaaduna heerka doonaysa gaadhisa dhammaantiin guul baan wada doonaa laakiin guush waxay u baahan tahay in loo dhaqaaqo ficilka la sameeyo qodobka ugu horreeya waxa weeyaan baryada ilaahay farabadi ilaahay bari wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam adducaau mukhul cibaada ducadu waa dhuuxa cibaadada ducadu waa hubka qofka muuminka ducadu waxyaabo macquul aan hebe macquul ka dhigta nabiyullaahi zakariya calayhi salaam markii uu mudhaliis noqday ayuu ilaahay baryada ilaahay darteed buu ka helay zakariya yaxya buu ka helay yaxya waliba magaca yaxye hortii qof lama odhan marka ducadu waa shay aad iyo aad u cajiiba mawduuc gaar ay u baahan tahay in lagu faahfaahiyo waqtiyo waxa jira xasaasi oo ilaahay la baryo niska dambe habeenkii salaadaha kadib salaadaha faradka kadib marka roobku da'ayo maalinka jumcada qodobka ugu horeeya waxa weeyaan ducada farabada ilaahay bari xaajaadka ilaahay u dhiibo qodobka labaad waxa weeye dambi haddii uu ka dhaco wanaag ka dabagay wuxuu nabigu xadiis ku leeyahay calayhi salaatu wassalaam اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إلهي كعب سميل البلد جوكتو دنبي هدي وكهرد عنا حمان هدي كهرد عنا وانا كدبقي ومسحسي إلهنا القرآن كحكولي إن الحسنات يذهبن السيئات حسنات كوي بابيان ويتكسيان سيئات كي حمايضة وحون إلهي لي سبحانه وتعالى كعنتي صوفي دي بنبي إلهي بك عنتي سهبين كصوفي دي si aw kii maalinkii dambaabay ugu dambi dhaafo maalinkii buu gacanta soo taagaa si kii habeenkii dambaabay ugu dambi dhaafo marka ilaahay markasta inaan u laabanno ood ilaahay u laabato dhaqan ka dhigato inaad ilaahay markasta u toobad keento nebi maxamed oo dembigiisii hore kii dambe la dhaafay ayuu ilaahay yoom walba wax ka badan 100 jeer ama se riwaayad ku sheegayaan 70 jeer ka badan ayuu ilaahay dembi dhaaf weydiisan jiray adna waad uga baahi badanta ilaahay marka qodobka labaad waxa weeye ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo marka dembi kaa dhaco wanaag ka dabagey qodobka saddexaad waxa weeyaan sadaqada farabadi sadaqadu aafaadka iyo cudurrada ayay ka hortagtaa boqolaal qiso ayaa la hayaa ama dhacdooyin adduunyada ka dhacay dad xanuuno aan daawo lahayn ku dhaceen markay sadaqada ay bixiyeen kadib xanuunkii hayay waa laga waayay sadaqada wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam war ittaqu naar walow bishiqi tamr war naar iska ilaaliyo ka cabsooda timir jeexeed oo sadaqaadsataan ahaatee naar ba lagaga badbaadaya cadhada ilaahay bay mataqaanaa badbaadisiyaa lagaga badbaadaa dembiga lagu dhaafa markaa sadaqada ogow xanuunada iyo aafooyinka aan daawo loo hayna way daawo u tahay ilaahay wuu ku daweeyaa qodobka saddexaad waxa weeye sadaqada ku dadaal qodobka afraad waxa weeye waqtigaaga meel fiican ku bixi waqtigaaga dayicin waqtigaaga waa noloshaada haddaad waqtigaaga dayacdo waxay ka dhigan tahay inaad noloshaada dayacayso waxa ugu qaalisanaad maanta haysatay waa waqtiga wey 24 saacadood bilaahay ku siiyey waxaa lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysto sida ugu fiican wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam min xusni islaami ilmar'i tarkuhu maa laa yacniihi qofka muslimka islaamnimo wanaagiis wuxuu ku jiraa inuu isaga tago waxa aanay dani ugu jirin maa laa yacniihi macnaha waxaana dani ugu jirin wey qofka mu'minkana waa looga fiican yahay inuu fadhi ku dirir iyo hadal iyo waxa aan loo baahanayn oo fuduulka ah inuu waqtiga ku lumiyo waqtigan waa lagaa xisaabin doonaa laba su'aalood buu waqtiga lagaa weydiin doonaa ilaahay hortiisa markaad istaagto waxa lagaa weydiin si duuduuba lagu weydiin cimrigaaga dhammaantii maxaad ku bixisay haddana dhallinyarnimadii ayaa si gooni lagu weydiin doonaa marka iska ilaali noloshaada inaad iska khasaariso waxaana laisku dhaafay
waa sida habka waqtiga loo maareeyo oo laga faa'iidaysto qodobo gaaran ka samayn doona insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeya ee lixaad waxa weeyaan ee shanaad waxa weeyaan hami sare yeelo noloshaada ilaahay inta cimriga ku siiyey ilaahay baa og intaad noosha laakiin hami ku nolow qof hami xambaarsan noqo rajulu duu hima yuxyi illaahu bihi lumma baa layidhi qof nin keliya hatuu hima iyo dareen iyo mataqaanaa hiigsi leh ayuu ilaahay ummad ku nooleeyaa waa inaad wax aad xambaarsan tahay iyo wax aad hiigsanaysa waa inay jiraan inaad noqon qof shalay wuxuu ahaa iyo wax maanta iskaga mid tahay qof haddii lagu cageeyo iyo haddii wax la siiyo iyo haddii dhulka lagu nabo iskaga mid tahay walaad noqotay qof aan meelaha hoose aan aqbali ha ku qancin oo ha noqon qof ku qancan nolosheeda hoose raadi isbeddel samee ilaahay tala saaro wax ku anfacaya ku dadaal meel sare hiigso heedka samada lalaayay uu ku xarrooqdaa dhulka inuu lugooyo dhulka tatallaabsado markaa waxaad noqotaa qof meel sare hiigsanaya ficilkeedana la imanayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu